السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa shabakada warbaahinta cagaaruuna.com barta ay ku leedahay Facebook sidoo kale waxaad wixii warar ka daalacan kartaan website-keena cagaaruuna.com waa maalinimo isniin ah taariikhdu 19 bisha June 2017 waxaana lagu jiraa sidoo kale 10kii dambe ee Ramadaan waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno faahfaahin iyo falqayn ku aadan xiisada colaadeed ee ka dhex taagan dalalka Djibouti iyo Eritrea oo baraha bulshada aad u dhex maraysa shacabka Soomaaliyeedna intooda badan ay dhagaha u taagayaan haddaba waxa mudan in la isweydiiyo afar su'aalood oo caawa miiska noo saaran xiisada iyo colaadda ka dhaxaysa dalalka Djibouti maxay ku bilaabantay markii hore waa su'aasha xigtee maxaa soo cusboonaysiiyay hadda xiisadaas su'aasha saddexaad ayaa noqonaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waajibaad intee leeg ayaa ka saaran dalka iyo dadka reer Djibouti su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa dawladda Djibouti iyo Eritrea dawladeeba gardaran yaa si duulaan ah waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Axmed Maxamed Maxamuud halka aad kala socotaana waa shabakada cagaaruune.com kuna soo dhawaada faahfaahinta barnaamijkaas Dumera waa jasiirad dhacda xadka u dhaxeeya Eritrea iyo Djibouti. Dumera waa buur aad u dheer waxa ayna jaar la tahay gacanka hodanka ah ee loo yaqaano Baabal Mandab. Haddaba Dumera dadka aqoonta u leh xuduudaha dhulka iyo waliba aragtida dheer u leh waxa ay sheegayaan oo ay xaqiijiyeen 95% jasiiradda Dumera in laga leeyahay wadanka Djibouti. Djibouti iyo Eritrea wax colaado uma dhaxayn wixii ka horeeyay sanadii 2008 inkastoo aysan lahayn xiriir saaxiibtinimo oo aad u wanaagsan haddana ma aysan jirin wax colaado oo ka dhaxaysa shacabka labada dalna waxay ahaayeen kuwo isku gudba oo si nabad isku gudba Eritrea marna wax wajiga uma aysan hayn Djibouti sababta taas keentana waxa ay tahay dawladda Ethiopia iyo Eritrea waxaan la soconaa in ay ka dhaxayso colaad aad u weyn oo guun ah ayagoo galay dagaalo aad u waaweyn oo faraha looga gubtay sida daraadeed dawladda Ethiopia halka kaliya ay wax kala soo degto waxay ahayd dekada ku taala wadanka Djibouti maadaama aysan dawladda Ethiopia lahayn wax dekad ah sidaas daraadeed arintaasi ayaa kaliftay in dawladda Eritrea aysan wax xiriir saaxiibtinimo aad u weyn aysan u hayn dawladda Djibouti ee ay jaarka yihiin haddana saas ay tahay ma jirin dhibaato iyo muran dhuleed oo ka dhaxeeyay labada wadan hadii ay ahaan lahayd dhanka dawladaha iyo dhanka shacabka 2008 bishii June ayaa waxa soo cusboonaaday xiisadaha iyo dagaalo waaweyn oo aad u qaraar oo dhex maray labada wadan ee Djibouti iyo Eritrea xiisadaasi ayaa timid kadib markii dawladda Djibouti ay shaaca ka qaaday in ay dhisayso bridge aad u dheer bridge kaasoo tagi doona dalka Yemen kaasoo la marsiin doono badda u dhaxaysa dalka Yemen iyo Djibouti bridge-kaasi ayaa dawladda Djibouti waxay ku hanweyneed in ay dhaqaalaheeda sare ugu qaado kaasoo ay rabtay in ay ka faa'iideystaan wadamada geeska Afrika waxaana loo isticmaali lahaa bridge-kaas kala gooshka ganacsiga dhaqaalaha iyo wax isdhaafsiga ee u dhaxeeya wadamada Carabta iyo sidoo kale wadamada ku sugan wadamada ku yaala qaaradda geeska Afrika isla markiiba waxa guluf colaadeed iyo dagaal ku soo qaaday bartii bridge-ka laga rabay in laga dhiso wadanka Eritrea waxaan ogsoonahay in uu Ethiopia la galay dagaalo aad u culus oo waliba uu 10 ka marsiiyay adag haddaba wuxuu ahaa dalka Eritrea dal ciidan xoog leh iyo dabaabaad xoog leh ay u diyaarsan yihiin wax badan dagaalo soo galay kana samaysan oo iska ah dal dagaal hase yeeshee dhanka kale Djibouti waxay ahayd dal waxa weeyaan nabad ku nool oo wax dagaalana aan gelin arintaasi waxa ay kaliftay in ay dhex maraan labada wadan dagaalo aad u qaraar dagaaladaasi oo ay ku dhinteen boqolaal ciidan oo ka tirsan labada dhinac halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale waxaana lagu kala qabsaday maxaabiis haddaba waxa saaxiib dhow la ahaa labada wadanka Qatar hadii aan inta uga soo gudubno bilowgii dagaalka iyo dhibaatadii waxa halkaas shirar waaweyn ka soo saaray dagaaladii dhex maray labada wadan golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyadoo lagu guuleystay 2010 in la geeyo ciidamo ka socday dalka Qatar maadaama Qatar ay ahayd saaxiib ku dhow labada madaxweyne iyo labada dalba bishan aan ku jirno ee June ayaa waxa yimid in ay isku dhacaan wadamada Khaliijka iyo wadanka Qatar oo dhinac ah taasoo
ay labadii wadan ee Djibouti iyo Eritrea meesha ay ka saareen xiriirkii saaxiibtinimo ee qotada dheeraa ee ka dhaxeeyay wadanka Qatar iyo labada wadan waxa ayna la safteen xulufadii khaliijka halkaasi waxa ka dhashay in ay dawladda Qatar gabi ahaanba ciidankeedii kala baxdo xuduudka loo yaqaanay ama buurti loo yaqaanay Dumeera oo ay ku taalay jasiiradda Eritrea ayaa isla markiiba ku soo ruqaansatay buurtii ayadoona la sheegay inay la wareegtay saldhigii ay ka baxeen ciidamadii Qatar inta haddaan uga soo gudubno sababihii uu ku qarxay dagaaladan iyo colaadan 10 jirsatay ee u dhaxaysa wadamada Eritrea iyo Djibouti su'aasha saddexaad ee isweydiinta u baahan waxay tahay shacabka Djibouti degan ha wataan magac kale laakiin waa shacab Soomaaliyeed ha haystaan madax banaani laakiin waa shacab muwaadiniin ah oo Soomaaliyeed lana mid ah kuwa ku nool gobolada Banaadir waqooyiga galbeed bari nugaal mudug iyo waliba gobolada kale ee dalka Djibouti waxa ay muwaadinka reer Djibouti waa mid la xaq ah oo la xuquuq ah muwaadinka kale ee Soomaaliyeed ee ku sugan goboladaas ama gobolada kale ee la haysto ee ay haystaan wadamada Kenya iyo Ethiopia sidoo kale astaanta Soomaaliya ay caanka ku tahay ee calanka buluuga ah shanta xidigood ee ku yaala shanta gees ee ay leedahay Djibouti waa gees kamid ah sidaa daraadeed shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxa laga rabaa in ay kala dhex gasho dawladaha Eritrea iyo Djibouti maadaama Ismaaciil Cumar Geelle uu xaqiijiyay kana hadlay waqtiyadii ay socdeen dagaalada ay 2008 in haddii Soomaaliya ay dawlad ka jiri lahayd oo ay taagnaa lahayd inaan Djibouti la soo haweysteen Djibouti oo caan ku ah ciidamada loo yaqaano hiil walaal oo ku sugan Soomaaliya iyo sidoo kale shacab hufan oo mar walba garab taagan dadkooda Soomaaliyeed ee walaalahood ah inkastoo ay yihiin dal yar oo kooban awoodiisuna ay kooban tahay haddana waxa loo baahan yahay ganacsatada shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed in ay door muhiim ah ka qaataan sidii loo kala dhexgali lahaa dawladda aan walaalaha nahay ee Djibouti iyo dhulkeena reer Djibouti iyo waliba dawladda Eritrea ee maaga iyo gardarada ku haysa dawladda Eritrea waxaan sidoo kale ogsoonahay in ay Soomaaliya la ahayd saaxiib dhow laakiin saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Eritrea waa mid ku dhisan nacaybka Ethiopia loo wada qabo taasoo la dhihi karo waa mid siyaasadeed oo Eritrea waqtiga doonto ay xiriirka saaxiibtinimo ee u jiri karto waqtiga doontana ay saaxiib la sii ahaan karto balse dalka Djibouti waa dal aan anagu leenahay waa dal dadkeena ay joogan waa dal isticmaalkii uu kala dhigay xad beenaad aan ku dhisnayn xaqiiq iyo dhab marka sidaa daraadeed waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in kastoo aysan isku mowqif ahayn madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle marka laga hadlo khilaafka iyo dhibaatada ka dhex dhacay khaliijka iyo Qatar haddana عرب isqabsatay dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed waxba kama galin siyaasadda Ismaaciil Cumar Geelle waa mid siyaasadda Farmaajo waa mid laakiin dhulka iyo dadka Soomaaliyeed waa in la kala dhaxgal waa in laga gaaraa barnaamijkan Eritrea ay la maagan tahay ayadoo barnaamijkaasi si fudud oo diblomaasiyadeed lagu xalli karo hadii uu madaxweyne Farmaajo galo shacabka Soomaaliyeedna waa inay ka dhiidhiyaan dhulkooda weerarka lagu hayo maadaama ay marar badan isku dayaan inay ka dhiidhiyaan dhulka Soomaali galbeed iyo Gaarisa Djibouti waa mid la mid ah dhulkaas la haysto ama waa mid la mid ah dhulka xorka ah sidoo kale waxa jira jasiirad loo yaqaan Suqadara jasiiradaasi oo ku taala meel Boosaaso u jirta kiiloomitir aan saa u badnayn jasiiradaasi waxa iska leh Soomaaliya waxaana iska leh dadka Soomaaliyeed laakiin waxa la sheegay inay waqti hore loo xalaaleeyay ama la siiyay dawladda Yemen hase ahaatee waxaan ogsoonahay inay dawladda Yemen burburtay waxaan Soomaaliya u soo jeedin doonaa ama barnaamijyo badan aan ka soo gudbi doonaa in jasiiradaasi laftigeeda lagu xisaabtamo ayna tahay dhul kamid ah dhulka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed waa inay maskaxdooda ka dhaadhiciyaan in aan la bixin taako kamid ah dhulkeena Soomaaliya maadaama awooyaasheen hal gandheer ay ku tageen waxa weeyaan dhulka aan maanta deganahay ayna xoreeyeen waxa la socodsiinaya barnaamijkan anigoo ah Axmed Nuur Maxamed Maxamuud inta aan ku kulmi doono barnaamij la mid ah waxaan idin ka tagayaa heestii Dumeera iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh يا يركع عسكري